Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We never give up. Hadalkeenu adigu kuma socday ha isxuqdadeenin. Soo dhawaada channelka nagala socotaan oo Maniyo Muqdisho official falan hada ku cusub tahay. Subscribe, share, like, comment. Lagtaadu waa ina barnaamijkeena ka heshay haddaad hore noola joogtayna aadaad mahadsantahay barnaamijka maanta aynu ka hadli doonana waa nolosha ciyaaryahan Zizo Hagan no Zizo Zinedine Zidane Franza no Zizo Zinedine Zidane Real Madrid no Zizo Zinedine Zidane haatan coachka u ah ama macalinka u ah Real Madrid macalinkii bitiga ciyaaryahankii bitiga maanta waxaynu ka hadli doonaa ciyaaryahankeena Soomaaliyeed ama Zizo Hagan halkood ku dhashay magaciisa saddexan cuntada noocuu jecel yahay banooniga ayaa ku soo dhiirigeliyay intee koox u saftay meequu garoon ka soo muuqday xul qaran ma matalay dharka noocuu jecel yahay miisiga ma dhageysta saaxiib sports ma leeyahay saaxiib xaafad ma leeyahay Zizo haduu banooniga ka fadhiisto muxuu rabaa inuu sameeyo madaaynu aan ognahay 16 inay ugu dambeysay inaan garoomada ku aragno Zizo Hagan nolosha Zizo oo dhameystiran ayaad maanta arki doontaa halkaana ka daawan doontaa waxaan ila socodsiin doonaa lamaanihii ka shee gruumka Maniyo Muqdisho iyo waliba Nairobi shaxshaxlay fadlan haddaad nagu cusub tahay oo hore aadan ula socon soo dhawow koobkaaga qaxwada aan meeshan soo dhigo ciyaaryahankaas ma beenahay ku tahay waa ila dhageysan kartaa waana ila fiirsan kartaa maadaama xirowga uu dhar labista aniga horta xiro leebo oga Zizo waa arki doonaa Zizo waa galeena xawana isku fiicanahay Zizo maadaama uu macallin dugsi u eg yahay haatan waxa aragtay Zizo soo garoon ku jiro hadaata taageero Hagan misana aan jeceshahay inaad Zizo noloshiisa wax ka ogato ku soo martin karaa waa azuumi kartaa dhar baa hadiyad u siin kartaa horta Zizo ani waxa hadiyad ugu geyn lahaa cimaamadii macawiis midaas waay magaciisa saddexaad Maniyo Muqdisho weydiinayna magaciisa saddexaad waxa la lahaa Cabdicasiis Maxmuud Sheekh Ismaaciil xiro dugsiga waa salaamayna haatan nuusa ku noqon doona Cabdicasiis intuu ku dhashtay intuu ku soo barbaaray Cabdicasiis wuxuu ku dhashay Maniyo Muqdisho ama Zizo Hagan anigu Zizo Hagan baan u aqaan jiray magaciisa saddexaad maanta aan bartay wuxuu ku dhashay degmada Yaaqshiid Maniyo Muqdisho meesha ka timid wiif maxaan dhaxay istaagay iigeeba ma ka imaanin inkastoo ani weynaanteeda le Yaaqshiid tagay yaraanteeda waxa ku soo koray xaafada degmada hodan aba barmuuda amba siigaal sida taqaan reer siigaal reer barmuud meel kasta joogan dunida waa salaama Yaaqshiid inkastoo waqtigan inta badan ani Nairobi aan ku qaadanay marka laga soo tagay Yaaqshiid shaqaas waxa u salaamaya degmadan intaan ku soo leekaaday degmadan ku dhashay degmadeeda Irkeele Madiina waxaan ku dhahay loofan ku ahay ma jirin ba insha Allah maalin waa dhax istaagi doona meeshan ku soo koray si qaas waxaan u salaamayaa asxaabtan iskuulada isla soo baranay asxaabtan jaamacadaha isla soo baranay asxaabtan yaraanteena isla soo kornay si qaas meel walba aad joogtiin waan salaamaya Maniyo Muqdisho Zizo meeqa koox buu soo dheelay Zizo banoonigiisa wuxuu ka soo bilaabay isla xaafada Yaaqshiid gaar ahaan laanta agteeda oo isaga degnaa barxad bisle wuxuu u soo ciyaaray FC Tokyo koox markaas la dhahaayay koox la kale la dhaho jaamac boqor oo isna ka aasaasaneed isla Yaaqshiid marka Yaaqshiid laga soo tago wuxuu kale koox u soo ciyaaray kooxda Saxafi ama Jaalo loo yaqaan horyaal oo la soo qaaday kooxda dambe uu ku soo biishubtana waxay ahayd Hagan mar uu Addis Ababa aadana koox Addis Ababa ka dhisneen uu la dheelay uu ka soo laabtay Hagantiisu ku soo laabtay marka laga soo tago Zizo Hagan yaa ku soo dhiirigeliyay kubadda cagta Zizo waxa ku soo dhiirigeliyay kubadiisa cagta ama maanta inuu magac Soomaaliya ku yeesho macallimo amiin macallin Soomaalida dhan ay wada taqaan macallin anagu aynu naqaano macallin aan halkan ka salaamayna maadaama Addis Ababa markuu ku arkay uu yiri Zizo fartaad ka xiran tahay garoomada cab walaalo meelaha iifa fadhinne xirowha igu ekaanne intaasna kaftane ahayd macalinkaas ku soo dhiirigeliyay aad weyn oo salaamayna macalinkaas Maniyo Muqdisho asxaab ma leeyahay Zizo Hagan
asxaab isboortiga oo asxaab isboorti ma leeyahay maadaama markasta aynu ogna asagoo TikTok deeqaariye la joogo oo deeqaariye maxaa la dhihi jiray asaga la isku xanta inay friend yihiin haddaba aynu ogaanay waa kuma saaxiibka isboortiga uu ku leeyahay siiso asxaab badan oo ku leeyahay isboortiga dhankeeda markii la dhaho asxaabtiisa waxaa ka mid ah deeq cabdulaahi nuur deeq aari salaamina aad weyn markii laga soo tago deeq aari maxamuud nuur mayma aad salaamina aad weyn mayma deeq aari meeshana ka salaamina insha Allah kan soo wada qaari noloshiisana soo socota markii laga soo tago deeq aari nimo saaxiib kale uu ku leeyahay qaranka Soomaaliyeed soo matalaayo misana wiil isku qol ku soo aaday diyaarad isku kursi fadhiisanayeen ajiro magaciisa saddexaad waxa la lahaa Cabdiraxmaan Cusmaan Muude ka soo wada muuqdeen saddex maalin xurqal isku raaceen wa salaamina markii laga soo tago asxaabta sportska ma ku leeyahay siiso asxaab xaafadeed asxaab uu ku leeyahay waa Anwar Abukar Fanax موسدني انت سو كله هاي اصحاب حافظه نو اصحاب سبورتيغا هذا نسلامينا ماليو مقدشو سيسو marka rabno ina maxal jira martiqaadno maxaa ina ku martiqaadna jecel yahay oo cuntada nooc ka hela siiso markii martiqaadna tahay taageeraheegan baxirowga waxa ku martiqaadaysa si ciyaartooyda badankooda Soomaalida cuntada ay wada jecel yihiin bariiska iyo doorada way isku fiican yihiin bariiskii malaayga way isku fiican yihiin cabitaankana maangaha amba isku wanaagsan haatan waxa weydiinaynaa Nuurus maadaama uu xiro yahay heesaha Soomaalida ma dhageysta haduu dhageystana iyo ka taageera heesaha Soomaalida aad isku wanaagsan yihiin xirowga fanaaniinta sida qaaska u taageerana waa fanaanka Saciid Taariikh waa fanaanka dharkeen leh aadan u salaamaya waa fanaankii jacayl been waay jacayl ku xijiro ma aha okay mali muqdisho aynu ka soo tagnaa asxaabtii xaafada aynu ka soo tagnaa asxaabtii isboortiga aynu ka soo tagnaa cuntada nooc ka helo aynu ka soo tagnaa maxaa la dhihi jiray fanaanka uu taageero haddaba siiso maanta hadaa dhaho dhara maxaa la dhihi jiray aan hadiyad ugu geenaya ma macawiis iyo cimaamada ugu geen lahaa hadiyad oo dharka nooc ka hela siiso soo nala wadaagay inkastoo uu kaftamay macalinku si uu eegahay ama ay kintii macawiisiyaas waxa aad ugu geenaysiin dharka balaaka ah mise madowga saa u taqaanay oo balaak marka laga soo tago siiso dharka hadiyad ugu geenaysiin siiso jacayl ma leeyahay haduu jacaylka leeyahay jacaylku isku wanaagsan yihiin siiso hortoode waa qof nasiib badan maadaama uu Nairobi milyoonka nasiib badan yahay markasta jacaylku ku guuleysta uu leeyahay siiso jacayl ilaahay isku barakeeyo laakiin qofka uu xiriirka leeyahay noomuna carbaabin laakiin uu leeyahay jacayl ma diidano inuu jacayl jirin misna inuu xiriir lahayn oo jacayl la'aantiis anaguba maan dhalan lahayn hawaara jacaylku inta isjecelna ilaahay hadaayana hana isku daayo hada malyon siiso waana ognahay ciyaartooyeen neceb yihiin iyo neceb yahay inuu garoonka la galo siiso wuxuu neceb yahay necebkoodina ma jiro soo laakiin markuu garoonka ku jiro ciyaaryahanka ku taagan mise kubadda ku cadaadiyo waxa waa ciyaaryahanada kubadda ku cadaadiyo Xasan Cabdinuur geesi xasaasi oo horseed ku sugan Axmed Xasan ciyo macaani oo asna horseed ku sugan Daawud Tuwaal oo asna halka ay jikada ku sugan oo inta badan Daawud Tuwaal ay dhaxdii isku arkaan halahaas kubadda ku cadaadiyan garoonka markay isku arkaan uu neceb yahay marka laga soo tago kooxaha caalamka siiso ka taageera siiso horta hore dadkii hore oo dhan ka duwan yahay wuxuu taageeraa kooxda la Blaugrana ama Barcelona sida u taqaanaan Spain markii la joogo waa labada koox Real Madrid iyo Spain iskala xifaaltamo maadaama aan taageero Real Madrid aan ahay labadeena waan ka soo horjeednaa maadaama Blaugrana iyo Lionel Messi ay taageertay halka Premier League-na oo mar kale naga soo horjeestay oo taageero kooxda Facaawin Manchester United anagu Manchester United ma taageerno Barcelona ma taageerno laakiin uu ka duwan yahay ciyaartooydii hore xoogaa way naga agdhawaayeen ama meel baan ku kala duwanay laakiin asaga labadaba waan ku kala duwanahay Blaugrana maxaa la jiraa inuu saacadaadino El Clasico kulankii ugu dambeeyay aan awgeyn
ayuu taageeraa haddaba markii laga soo tago kooxaha caalamka inuu taageero muxuu jecel yahay markuu isboortiga ka fadhiisto inuu kusoo gabagabeeyo maadaama aynu ognahay 16 inuu ugu dambeeyo garoon inuu kasoo dhex muuqdo ama ciyaar laga fiirsado siiso heegan muxuu jecel yahay ma sidii buusho kale u dhihi doonaa weli ima qorsheysano isboortigan ku jiri doonaa mise sida macaani iyo hadaf yeelan doonaa marka laga soo tago isboortiga Soomaaliyeed waa wax meel ku og sidaan wada ognahay wax meel ku eg siiso uu ka duwan yahay inta qof barnaamijku ku soo qaadanay kulli uu ka fikir duwan yahay uuna kara duwan yahay wuxuu jecel yahay in uu noqdo pilot mise duuliye diyaaradeed mise doctor oo wax daaweeyo waan soo dhaweynaynaa waxaan rajeynaynaa diyaarada adigu wadid inaani neerus raaci doono doctornimadan oo kugu soo dhaweynaynaa maadaama aad dadkan dhan qof siyaasadda u dabacarir qof isboortiska ka duwan tahay waxaa ku leenahay camal wadanku u baahan yahay welcome ku leenahay waa kugu dhiirigelinaynaa maadaama aqoontu sidaan hore u sheegay ayna meel ku ekeen laakiin maxaa la dhihi jiray isboortigu meel ku egeeyo kaliya waliba isboortiga Soomaaliya intaad xoog leedahay aad deelaysid diyaaradaad adiga wadina sidee milyan sheegtay awishiinaan korno insha Allah pilotnimana walaahi wax yar ma ahan doctornimada baroomba دكتوركي عافمات dadka looga imaado Allah ka dhigo cilmigaaga ama rajadaada ama hoobkaagana Ilaahay ha kula garab galo siiso maadaama ay tahay dadka iskaga dhawaanahay ku rajaynaynaa horumarkaagana waa noo farxad maantana waxaan ku soo qaadanay barnaamijkeeni nolosha ciyaaryahan siiso heegan maadaama dadku aniga xataa aan u aqaan oo la siiso heegan aan magaciisa saddexan ama magaciisa runta aan aqoonin aynu baranay inuu ku mahadsan yahay sida quruxda badan misna qiimaha leh oo noo wadaagay xogta ama noloshiisa dhabta ah aadana uga mahad celinayna mali muqdisho kuntiya gabagabadii taaganahay siiso waa mahadsan tahay si qaas ah kugu mahad celinayna sida noo respect gareysay misana ciyaaryahanada hore camal saa u sheegna aan ugu respect gareysay aad u mahadsan tahay siiso anaga ahaan oo isku fiicannahay xogtiisa buuxdan sidoo noo siiyay aad ugu mahadsan yahay waxaan rajeynayaa in aad hobka iyo hamiga aad leedahay oo Ilaahay ku dhaweyn doono meesha higsanaysidna aad gaari doontid insha Allah waqti walba ducada la isku leeyahay waxa ku leenahay horumar wacan nolosha kuma xumayso walaalkay meesha higsanaysidna Allah ku gaarsiiyo taasi waxay ahayd nolosha ciyaaryahanka siiso maadaama aan aragtay asoo garoon ku jiro banooni dheelaayo shakhsiyadiisa dhabta aadan aqoonin wuxuu ku sugan yahay wuxuu jecel yahay wuxuu neceb yahay aadan aqoonin waxa rajeynayaa inaad wax ka baratid insha Allah nolosha ciyaaryahanada maadaama uu bil barakeysan Ramadaan ay nagu soo dhawdahay nolol ciyaaryahan hada aanan soo qaadan doonin siiso oo soo gabagabeyn doona insha Allah laakiin markuu Ramadaan kala naga dhamaado oo Ilaahay qeyrkiisa soo aadiyo nolosh ciyaaryahanka dib u sii bilaabi doonaa insha Allah soonkeeni waxyaabo idin xiiso gelinaa inkastoo hada aanan qorsheynin waa rajeynaynaa inaan idin soo deen doono waa milyan qudshii neeru shaxshaxleeyo idin leh isma dhaaf caafimaad baan iga